nabadeed waxaa diraayo aqoon-yahanada dhalinyarada beesha mudulood waxayna baaqa u dirayaan walaalahood ku dagaalamayo gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Cadale ma jeclin inuu dhiig walaal daato dadka isdilaayo waa dad is dhalay waa dad isla dhashtay waa dad wiil iyo waalid aniga ma aaminsanin waxaan dagaalaa inay laba beelood yihiin waa hal beel oo walaalo marka waxaan leeyahay dhiiga daadaha ay joojiya nabada naas la nuuga leh nabadaana deeqdo dagaal mana deeqo dagaal wiila ku dhinto wiil kuma dhashto hadii taa laga gudbo Cadale waa magaalo qaniimi waa degmo qaniimiya waa degmo qurux badan oo xeeb leh waa degmo loo dalxiis tago waqtiga loo dalxiis tagi lahayna in dhiig lagu daadiyo waa wax laga fiican yahay marka waxaan dhihi lahay dadka u arko in macnaha ay dagaal oo faa'iido leh dagaal waa ka soo daalnay dagaal waa lagu soo farmxurxay dagaal wuxuu yahay waa la soo arkay nabadaana deeqdo qoroga dhiga qalinka qaata wax barta qofka aan wax aqoonin wax barta si ay wax u fahanto jahliga ha laga baxo dadka dhalinyaro ahaan waxaan rabnaa labada dhinac in maxaan ku raadaa aan isu nimaadno qof kasto oo maxaan ku raadaa reer Muqdisho ee ku abtirsada magacaan mudulood ee dhalinyaro ay wax bartay mas'uuliyadda iska saaran karnaa walaalihi meesha noogu wacay way maadsan yihiin shaqadii ay qabteen waa u mahad celinayna laakiin waxaan rabnaa shaqadii inay sii socoto deegaanadii aan tagno labadeena dhinac si guud maxaan ku raadaa gifness aan isku siino kadibna waxa anaga aan sameynayno waa wanaagu dadku ma diidayaan wanaag dadka ayaga soo raacay marka inaan hor u socona rabnaa insha Allah dadkeena aan maxaan ku raadaa kala badbaadino aqoonteena markaas ay macna sheeganaysaa markii dhiiga dadkeena aan kala badbaadino laakiin macna ma sameynaysa in magaalada aan la joogno aqoonteenu aan hoteelada kula jirno dadkeena aan kala badbaadino marka 100% waa ka xunnahay waana cambaareynayna wixii dhacay inay soo noqdaan marka la raali kama nihin سيدنا محمد warmurtiyeed ujeeda baaq nabadeed maanta taariikhdu tahay 9 bisha afraad 2020 garabka aqoonyahanka dhalinyarada mudulood waxay dirayaan baaq nabadeed oo ku aadan oo ku wajahan dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada hoos taga degmada Cadale loo joojiyo kana shaqeeyaan sidii aysan markaa u soo laaban colaadaha muddada badan soo laabtay ugu dambeyn dhalinyarada waxay u baaqayaan dawladda dhexe maamulka Hirshabeelle in ay qaataan kaalintooda ku aadan joojinta dirirta ku soo laabatay deegaanadan oo aan mar koowaad iyo mar labaad lagu dagaalamin sidoo kale dhalinyaradu waxay maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga gobolka Banaadir ku baaqayaan inay kaalintooda ka qaataan maadaama aan ognahay in ay soo galeen waxa la yiraahdaa colaadahaas magaalada Muqdisho sidoo kale dhalinyaradan maanta halkan isugu timid mudulood waxay dirayaan tacsi ku aadan cid kasta oo ay saameysay colaadaas muddada badan soo noqotay kulankan waxaan ugu baaqaynay maxaa la yiraahdaa in dadka walaalaha ee deegaanada Cadale inay maxaa la yiraahdaa colaadaha joojiyaan waana sii wadan doonaa waxaan ugu mahad celinaynaa isku keenistan iyo qaban qaabadan gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad aad ugu mahadsan yahay inuu maanta geed fadhi iyo qaban qaabo u ahaayo kulankan dhalinyaradu codsatay inuu kulankeedii qabashadeeda u lahaa aad ugu mahad celinaynaa waxaan kale ugu baaqaynaa walaalaha wada Cadale in maanta iyadoo dunida ay marayso dunida saddexaad ay marayso marxalado in horumar iyo lagu xisaabtamo in maanta dib loo soo celiyo dagaal qabiilad ama aana qabiilad waxaan ku baaqaynaa dagaal waa ognahay wiil ku dhasho wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho waxaan leenahay walaalayaal dad walaalaad tihiin dad isku xiga ehelad tihiin waxa fiicnaa lahayd meesha aad wiil ka dileysaan inaad wiilashiina aad ku gaamisaan dhanka waxbarashada iyo maxaa la yiraahdaa iyo tacliinta waxaan aad ugu xunnahay oo aan aad ugu tiiraayeenna tacsidan la wadaagayna falalkii soo galay magaalada Muqdisho way ku dhinteen dad wax garad iyo aqoonyahan waxaan leenahay naxariista janna Allah ka waraabiyo insha Allah kulamadaana waa sii wadi doonaa cid kasta oo dhalinyaro ahna oo ama ha noqoto labada dhinac ee maxaa la yiraahdaa dirirto kala gaartana meeshan way fadhiyaan maanta labada dhinacba oo ku dagaalamayo wiilashiina wax bartay aqoonyahanka maanta way isjeceliin way isla joogaan meeshaan isla fadhiyaan baaqana si nabad ay u dirayaan waxayna ka mid yihiin dhalinyarada mudulood ay ka mid yihiin waxaan jeclaan lahayn marka qof kasta oo garawshiye leh inuu intaas garto maxaa la yiraahdaa dagaalkana la joojiyo
gudoomiyaha uu ku mahadsan yahay qabanqaabadan insha Allah dawladda dhexena waxaan leenahay mar kasto maxaa la yiraahdaa haddii waxaan diyaar u nahay xataa inaan dhaqaalaheena iyo dhididkeena aan ku bixino haddii xataa ay noqoto in la dhexdhexaadiyo dadkaas walaalaha waxaan baaqa mar kale ku celinaynaa mar saddexaad ku celinaynaa in dawladda dhexe iyo maamulka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka qaataan kaalinta ay ku leeyihiin annagana insha Allah waxaan ka qaadan doonaa kaalinta walaalnimo aan ku leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh